gabadhani waa gabar Soomaaliyeed waxayna ka xamaalataa ama ay ka shaqaysaa sida ay sheegtay magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii ay ku badan tahay Soomaalida. Gabadhani ayaa waxay sheegtay shaqada ay qabato inay tahay shaqo ragayd isla markaana dan un ay u geysay oo aysan ahayn shaqo dumar lagu yaqaan ama looga bartay. Shaqadaasi ayaa waxay tahay in ay tahay darawal isla markaana ku xamaasha taksiga ayay ku xamaalataa iyada oo qaada rag iyo dumarba shaqsiga u baahan in meel la geeyo waxayna sheegtay in ay ku xiran yihiin macaamiil aad u badan hase yeeshee waxay sheegtay rag weliba Soomaaliyeed in ay ku faquuqaan shaqadeeda una qoonsadaan waxay sheegtay in ay la'dahay meel ay gaarigeega bakan dhigato iyada oo weliba mararka qaar lagu carqaladeeyo oo gaarigeeda askar loo dhiiba ama askar ay qaadato la wareegto. Waxay sheegtay in dhibaato aad u badan ay kala kulanto gaariga wadistiisa sida in dhalinyaradu ay fuquuqaan oo kale. Dadkani Kenyaanka ah ama Kenyaanka markii la yiraahdo Afrikaanka waa qoomiyadda kaliya ee ugu dabeecadda fiican shacabka markii la yiraahdo, laakiin Soomaalida waxa weeyaan qabaa'ilaadka ama qoomiyadaha Afrikaanka ah kuwooda ugu cunsuriyeysan weeyaan. run ahaantii waxaana kuugu daliil ah iska dhaaf meel kale inaadan aadine gudaha Soomaaliya markaad joogtid oo Soomaaliya aad joogtid gobol haddaad ka tagto lagugu yaqaan oo gobol kale oo naga yaqaan aad tagto waxa lagugu bilaabaya ugu horeysa yaa tahay markii yaa tahay lagu yiraahdo waxaa ku xigta reer hebel waxaasa naga dhaxeeya ama waxay ku dhahayaan xiriir wanaagsan baa naga dhaxeeya cidaasi waa isku fiicannahay oo qaraabaan nahay gabdhaas ka qabnaa ama waxbaa noocaasa iyo inay ku dhahaan nalama tuso cidaas iyo carar meeshaan lagugu cunin waa kan kugu roona kugu diga kan kalena uu kugu tago uu ku dilaba aana uu kugu dilo awowyaashii hore ay iska qabeen camal uu kugu dilo. Laakiin Kenyaanka way ka duwan yihiin taas oo aad iyo aad ay uga duwan yihiin. Dowladda iyadu wax alla waxay faragelin ama ay corruption ku sameeyaan ama ay rafaadiso oo askarigan hadduu ku qabanayo ha ku qabto walow most corrupted country uu yahay meesha ugu corruption ka badan uu yahay haddana markii la yiraahdo la noolaasho shacabka waa wadamada Afrikaanka wadanka kaliya ugu fiican ee shacabka lala noolaan kama la dhaqmi karo. waxaana kugu daliila adiga oo shakhsi Soomaali ayaa waxaad tegaysaa county dhan ama aan gobol dhan oo Kenya ka mid ah oo qof Soomaali shakhsi Soomaali aan lagu arkin halkaas dukaan ka furan ganacsi ka furan cid kugu shaqar jaami maxaad xageed ka imaatay maxaad cid ku dhiimala cid ku jaajuusi baan jirin dawlad baan dan kaalayaan muhiimadda waa sharcigaasi dhalashada inaad wadato intaas weeyaan inta hada wadato waa waxa tahay Kenyaan cid kula hadli ama qabiil ku fiirin ama wax ku eegi ama ku dhii Soomaaliyeed ka tahay haba yaraatee ma jirto. Laakiin maanta haddii gobol Soomaali intaad ka tagto gobol kale aad tagto sidaad ganacsi ugu furato way adag tahay adkaasho ma ahee inaad ku baridaa adaga inaad ganacsi ka furato xageeba ka sii jirtaaba. waxaan marka ula jeedaa wax badan ayaad maqasheen Soomaali isku laynaysa toori wadamada qurbaha dhexdooda dhalinyaro islaynaysa qabiil isku laynayso shaqooyin isku dagaalay Kenyadan markaad imaato ama Kenya markaad tagtaba waxaad ugu tagaysaa iyagi dhexdoodii baa isfaquuqi oo is arki karin oo qabiil isku caay oo waxba isku caay oo qabiil isku sheegan oo power isku sheegan oo waxyaabo caynkaas iskula dhaqmi oo xitaa sharciga qaanuunka dalka ka jira aan eegaynin oo ah qofkan haddii uu yahay Afrikaan kow uu yahay qof dhalatu ah oo sharciga dalka Kenya wato in aan lagu dhibaateyn karin ama aan wax lagu yeeri karin oo xaq u leeyahay in wadankiisa si xornimo ah meesha rabo u maro. Laakiin maanta inaga Soomaali hadaan nahay meel kasta oo tagno inaga ayaa isku maqan inaga ayaa rag iyo dumar basa isku eeganayna. Gabadhani waxyaabaha ay ka dhawaajisay la yaab kale ayaa waxay kamid tahay in lagu eegayo ama lagu faqiiqayo qaab qabiilnimo mararka qaar iyada oo loo tiirinayo qabiil kale oo Soomaaliyeed iyada oo lagu faquuqayo reer hebel baa tahay maxaad meeshan ka tahay waxyaabo caynkaas marka waa inay bulshadu ku baraarto indhaha kala qaado in ay ka waantoodo waxyaabaha caynkan oo kala ceebta iyo foolxumada kuwa waxaad arkaysaa Kenyaanka shacabka waxay kala barteen qabiilaadka Soomaalida waxa baray dadka Soomaalida ah ee markaasi ama sharci darrada ku jooga dalka ama sharciga ku jooga ku dhashay degan dhexdooda cuqdad iyo wax yaalo iyo isqabsasho kafac oo u dhaxaysa iyaga ayay iskugu haysanayaan waxay midba midka kale ku xamanayaan Kenyaankii isku xamanayaan Kenyaankii isku sheegayaan waxyaabo caynkaas ah waxa kale oo arkaysaa qofkan Soomaaliga ah
haddii uu la dagaalo qof Kenyana meeshana Kenyaan bas uu joogo Kenyaanka uma hiilinayaan qofka Kenyaanka si degdeg ah uga qabanayaan waa la kala dhexgelaya waa la kala qabanaya waa marka lagu fiican haddii kale kii raayay ku dhahayaan faraha ka qaadayaan sidii dibi dagaalay feer baa isku daldalaya waa la kala dhergaya halkaas lagu kala yaacaya laakiin Soomaalida qajaf haddii qof Soomaali laga siiyo waxa laga yaabaa qofkaas inay iskugu tagaan ay dilaan sida ay tahay kama dacwoonayaan shacabka Kenyaanka uma dhahayaan dadkan dalka anaga noogu yimaadeen saa nolol dhaqmayo maxay ahaayeen kama ficil qaadanayaan marka waxyaabaha inaga oo muslim ah nala faray oo waajib inagu ah haddii uu gaal kuu sheego ur badan oo kaa liita oo waxba ahayn uu kuu sheego Afrikaana uu kuu sheego oo caqliyan iyo diiniyan ba laga rabo adiga waajib kugu ah sida inaad deriska ixtiraamto inaad qofka kaa liita gacanta qabato inaad muxuu ahay qofka muxuu ahaa maanta garab kaaga baahan aad garab istaagto inaad walaalka labada jeer mar hadduu khaldan yahayna aad qabato oo hiil ugu noqoto khaladkaas inuu gelin haddii laga gardaran yahay oo la dulminayana aad garab istaagto oo xaqiisa inaad u dhiciso aad isku daydo intaa adoo garan waayay oo muslim ah oo maanta Soomaalima sheegan oo landheernimo sheegan oo wax sheeganayo inta hadad garan weydo ninkii madow ah ama Afrikaan ah oo waliba gaal ah oo adiga inuu ka liito mooyaane aan waxba ku dheereen haddii uu ku sheego oo dalkiisa magan ku tahay u joogto waliba dhexdiisa isku sii dagaalayso waxa weeyaan foolxumo aad u badan marka waxaan baaq u direynaa Soomaalida meel kasto caalamka ay ka joogaan walaalayaal ceeb ha noo soo jeedina foolxumadan iska dhaafa war qabiilkan aad wadamada kale la tageysaan iyo faquuqan iyo dhibaatadan iska dhaafa dulmigan aad isku dulminaysaan wadan idinka aydan lahayn markaad kiina soo burburiseen joojiya waxyaabaha caynkaasa marka waxay u baahan yihiin in la dhiirigeliyo dhalinyarada laga qayb qaato barnaamijyada caynkiin oo kale ah ee looga hadlayo waxyaabahaas oo kale haddii aadan ka qayb qaadanin ogow adiga ayay kugu dhacaysaa haddii aadan qofkan khaladka u galaya uga digin oo toosh ugu ifin oo dhihi war waxan kuma anfacayaan iska dhaaf aadan dhihinna waa wax adiga kugu soo maqan oo adiga ku soo hiraadi doonta hadhow oo naftigaada kugu dhici doonta maanta haddii aad ado wadamadan kale Afrikaanka ah ee deriska ah waxaa laga yaabaa inay ku faquuqaan oo ay ku dhahaan qofkani xagu ka yimid muxuu ahaa farta kugu fiiqaan Soomaaliya oo kale maanta shakhsi madow ah Afrikaan hadduu dhex maro magaalo caasimada dhan baa ku daba guuri carruurta ku daba yaacay dhagax bay kugu dilayaan way ku daba yaacayaan waa gaal bay ku leeyihiin waa jareer bay ku leeyihiin wax kasta ku dhahayaan waa cunsurinimada Soomaalida waxay ka gashay koobka koobaad laakiin maanta marka wadamadan kale Afrikaanka ka tagto wadanka ugu fiican ee lagu noolaado ama dadka soo dhaweeyo ama kugu ixtiraamo sharciga markaas aad leedahay waa Kenyaanka walow hadee boolistu ay dabcan raadiyaan dad aan sharciyo lahayn oo dadku saasi u dhibaateeyaan oo mararka qaar dhacdo in guryaha lagu imaado lagu garaaco hadii sharci aadan lahayn lagu gulgulo lagu dhibataasne xaq u leeyahay askariga sharciisu qabsanaya maadaama wadankan uu sharci lagu joogo ama sharci lagu ilaaliyo haddana laga yaabaa hadhow hadii sharci adoo sharci lagu khaldamo in lagu raali geliyo oo lagu dhaho raali waa ku khaldanay muwaadin baa tahay raali noqo lagu marka waxa u jeednaa in waxyaabaha dhaqamada ah ee wanaagsan xitaa mararka qaar aad kaga dayato qofka ka horeeya waxyaabo loo baahan yahay maanta gaal haddii dhaqan aan kaga dayanayna anaga kolba islaamnimadeena waxaan dhihi karaa waa bar islaam ma dhihi kara laakiin islaamnimadeeda waxyaabo badan oo kaamili lahaa oo buuxin lahaa ayaa ka maqan maanta saas darteed waxaan ka codsanaynaa haddii aad ugu cusubtid muuqaalka share inoo dhaha si uu u gaaro asxaab badan haddii aad horaan u joogtin oo ku mahadsan tahay muuqaalka like inoo saar sidii kadaalika si aan u helo saaxiib wanaagsan adigoo kale ah mahadsanid